guddida qabanqaabada caleemasaarka Suldaan Maxamed Aadan Faarax Qoolaab oo ah suldaanka cusub ee beelaha dega Burco Wadaamago Qorlugud iyo Coodanle oo maanta shir jaraa'id ku qabtay hotel Nastoox ee magaalada Burco ayaa sheegay inuu dib u dhacay caleemasaarka suldaanka iyagoo sheegay in 19 bisha labaad 2022 uu caleemasaarkiisu ka dhici doono degmada Qorlugud ee ka tirsan gobolka Buuhoodle odayaashan cuqaashan iyo waxgaradkani oo hadallada iska daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa sida tan shirkeena jaraa'id maanta wuxuu daaranaa in aynu iclaamino madashii markii hore aan ku ballanay inaan ku shubka Qorlugud ka dhigno suldaanka guud ee Bare Cabdile waqtigaas oo ku beegnayd 7 bishii imika ilaa bariya waxaanu dib u yara qaadnay duruufaha jira awgeed bisha labaad 19keeda 22 insha Allah marka guddida qabanqaabada caleemasaarka suldaanku waxay isla garatay duruufaha iyo hawlaha jira daraadeed in muddadan waqti korus lagu daro muddo lagu daro haddii alla ka dhigo muddadaas oo ku beegnaan doonta 19 bisha labaad ee 22 waxaan ka fursan weynay inaanu la socodsiino dadweynaha meel kasta jooga ama gudaha joogaan ama dibadda joogaan in iclaanka aan gaarsiino si hawshaasi ay waqtiga aan ugu ballanay ay iyaguna ogaadaan taasoo caleemasaarkuna haddii ilaahay ka dhigo uu noqon doono degmada Qorlugud sidii ballantu hore u ahayd insha Allah taala shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay iclaan marka aan halkan ka bixinayno suldaanka guud ee beesha Bare Cabdile Maxamed Aadan Faarax Qoolaab oo ay ku beegnayd muddadii hore aan wacyiinay 7 bisha koowaad taas oo wax weeyaan aanu dib uga rarnay duruufo jira awgood oo marka ay ka mid tahay duruufahaas ku Coodanle iyo kuwa kale oo farbadan sidaa daraadeed waxaanu talka sharafta leh ogeysiinanaa iclaanka hore u gaadhay inay ogaadaan in aanu ku beegnay oo maanta muddadii aanu ka dhignay 19 bisha labaad 2022 maalin jimco ah goobtuna ay noqon doonto Qorlugud sidaasaan ogeysiinanaa halkan waxaanu maanta ka calaaminaynaa suldaanka Bare Cabdile ee guud muddadii aanu markii hore dadka kula ballamnay waxaanu dib uga dhignay duruuf timi la ajigeed oo ah abaaraha biyo dhaamista colaada waxyaabaha urulee faraha badan la ajigood waxaanu dib uga dhignay inaanu bisha labaad 19keeda sanadka cusub waa ayaanu dib ugu dhignay waxaanu dadka ogeysiinanaa intii hore u ogeed iyo intii dambe imika maqli doonta waqtiga inaanu dib ugu qaadnay oo sababaha aanu dib ugu qaadnaa inta aanu sheegnay ay tahay waxaanu doonaynaa markaa inaanu waqti ka qabow oo hagaagsan inaanu hawsha dib u gallo waana suldaanka guud ee beesha Bare Cabdile haddaan nahay odayaasha Bare Cabdile suldaanka Maxamed Qoolaab ee aanu shaacinay muddadii aanu qabanay dib baanu u qaadnay gaar ahaan waqtiga jira adduunyada ka jira waxaanu ogeysiinaynaa dhammaan Somaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi wasiiradiisa shaqaalaha dawladda beesha Bare Cabdile habar jeclo muddadii inaanu dib u dhignay oo aanu ku beegnay bisha labaad sanadka cusub 19keeda waxa aanu ogeysiinaynaa dhammaan Bare Cabdile wixii dibad jooga iyo wixii guda joogaba inay sidaa arrinta ku ogaadaan dhammaan suldaanku waa suldaan Somaliland waa suldaan nabadgelyo arrinta caleemasaarkii suldaanka Maxamed Aadan Faarax Qoolaab oo ku ekaa bisha January 7deedii waxaa dib loogu qaaday bisha labaad 19keeda iyo Qorlugud iyadoo arrintaasi ay koosgaraysay duruufo ka yimid degaamadii heerku lahaa sida Coodan loo kale hawlo shaqaaqa ah oo arrintaa dib u dhigay sidaas baan ogeysiinaa ummadda Somaliland odayaasha waxgaradka sulaadida cidii arrintan ballanqaadka xiiseynayay ee aad iyo aad maanta ugu baahnayd bari ay ku ekayd arrinta tani oo u soo diyaar garowday sallallahu khayr waxaan leenahay bisha 19keeda iyo degmada Qorlugud ee ka dhacaysa Suldaan Maxamed Aadan Faarax Qoolaab oo ah suldaanka cusub ee beelaha Bare Cabdile ayuu caleemasaarkiisu dhici doonaa 19 bisha labaad 2022 kaas oo ka dhici doona degmada Qorlugud Cabdirashiid Timir Home Cable TV Burco